Okay, soo dhawaada dhammaantiin soo dhawaada inta ku hadasha luqadda Soomaaliga. Maantay waxaan sameynaynaa absolute reference aan kor istaagaynaa. Waxaan ka soo hadlay relative reference iyo characteristic iyo behavior ay leedahay. Relative reference inaad fahantidna aad muhiim u tahay si aad ogaatid absolute reference-gana wuxuu yahay. Horta by default normally cells dhan oo Excel-ka waxay ku dhisan yihiin relative reference. Marka inta waxaa laga rabaa student grade by percentage points oo looma baahno. Halkan waxaan report gareynaynaa points percentage u bedelaan la dhahay. Okay, marka aan demonstration ka bilowno equals marka waxaan leeyahay 74 divided by 100 points enter. Good. Halkan wuxuu dhahay okay good 74% oo haysta. Okay, all right, that's good. Haddaan fiiriyo waa sax saare waa 70 value halkan ku jira B5 ku jira divided by value B ku jira and B3 ku jira. So that's beautiful. Laakiin maxaa dhacay haddaan formuladii copy down sameeyo ilaa waxaan rabaa wixii oo dhan ardadoo dhan inaan ku apply garay mugto. Okay, waxaan tagnaa Cabdirasaaq wuxuu dhahay marka waxaanu soo qoray maxaa jira halkan haddaad sii tagtid error in value maxaa qaldan waxaan ma diri kara mugto. Xaqiiqdii haddaad double click garaysid the rest of the record waa qalad. Kan hadda 93 haysta Axmed wuxuu yiri 291%. So waa aragtaa waxbaa si ah marka meesha wax si ka yihiin waa inaa aragtid. That's relative-ka oo hadda uu sameynayaa wuxuu sameynayaa relative marka inta ku copy gareeyo waxaa arkaysaa oo aan double click gareeyo wuxuu leeyahay B6 divided by B4 mana rabo waxaan rabaa B6 divided by always back to this. I want this 100 halkan cell-kan inuu absolutely ahaado refer back to that taasaan rabaa. Marka okay formuladeedan wax ka qaldan male saa aragtaan waa sax waay laakiin maxaa ka qaldan keliya inaan ka dhigo absolute reference. Okay, halkaanaan tegayaa waxaan ku hor xirayaa dollar sign number 3-gana waa hor tagayaa waxaan ku hor xirayaa dollar sign. haddeertaan absolute lagu sheegayo waa kaasaa hadda absolute aan ka dhigay haddaan copy gareeyo fiiri marka absolute actually haddaan ku copy gareeyo the rest of the record-ka fiiri marka 88% all of them fiiri waayo randomly midkaan fiiri marka muxuu sameeyey marka wuxuu yiri B8 oo ah halkan location-ka ah divided by B3 absolute reference-gii uu raacay wuxuu raacay amarkaan siiyey oo ahaa this cell is locked waa absolute you always go back to that. Marka absolute reference-ga lagu sheegayo waa kaasaa waxaan rabaa marka inaan idin siiyo mar walba waxaan jeclahay inaan idin siiyo maaragtay kasii fudud wixii idin tusay. Waxaan rabaa hadda inaan idin tuso shortcut key oo lagu sameeyo absolute reference lagu sameeyo. waxaan leenahay formuladan dhisaynaa equals marka hore 74 loo qaybiyey 100 points ama 100 dhibcood. waxaan leenahay halkaa markay marayso waxaan taabanaynaa keyga ah F4 aan taabanaynaa keyga F4 taabo mujeda dollar sign-ka data aan manually ku geliyo gacanta aan ku geliyo hadda automatic B4 waxa ii geliyay keygaas B4-ka aan taabtay uu ii geliyay intara dhaysa marka mujeda marka double click garayso halkaas marka cursor-ka isku bedelo double click garayso then waa formuladii ku maaragtay copy down to the rest of the maaragtay students-ka iyo points-gooda maaragta marka waxa ku suurtageliyay shortcut key F4. casharkan waxaan ku qaadanay waxyaalaha ugu muhiimsan oo essential-ka ah marka Excel-ka aad baranaysid waxaana ku kafar garaynay absolute reference. marka waa saas absolute reference-ga waa log la xiraayo meel aad xiraysid waxyaalo badan oo u baahan doontaa marka calculation sameynaysid marka tax rate maaragtay sameynaysid meelo badan oo waxaa jira marka race bixinaysid oo ku bixinaysid maaragtay percentage meelo badan oo waxa u jirta u baahan tahay kaliya one cell inay ku noqdaan wax walba aad sameynaysid
and that's when you need absolute referencega si loo sameeyo. Okay guys, saasa inoo ballana, clipka dambe inoo ballana. I hope inaad ka faa'iideen. Isticmaala absolute reference.